ها waxaan leeyahay uu qalma sida madaxweyne Erdogan-ka Turkiga oo kale fudeeyo haddaan maanta aan weliga horto ma codayn ilaahay baa runta jecel ee saadaan islaam maanta codee ninkaas hadduu madaxweyne isku soo sharxo marka waxaan ku ducaynaa anagu haddaan culimada nahay waxaan kugu ducaynaa daacadnimadaan kugu ducaynaa iyo maartay sidaa maartay u shaqeynaysan kugu ducaynaa ilaahayna ku Soomaaliland ee Hargeysa waxay markii ugu horeysay ku talaabsanaysaa dhismooyin xagga wadooyinka oo hogaaminayo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaan hor dhignay aragtida ah inay maayir Mooge ay u dooran karayaan hadduu isku sharxo xilka madaxweyne bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan salaamayaa dadweynaha iyo bulshada reer Hargeysa intaa kadib su'aasha ah Cabdikariin Axmed Mooge ma u qalmaa inuu noqdo madaxweyne dalka waxaan leenahay haa boqolkiiba boqol uu qalmaa madaxweyne waana ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay gaadhsiiyo waana maayirka koobaad ee yacni maayiradii dalka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda markaan ku hadlayna Hargeysa maayiradii soo maray maayirkan Mooge wuxuu yacni isagu la gaar yahay inuu soo kordhiyo tusaale cusub oo maayiradii hore aan laga arkin tusaalahaas oo ah qodobka la yiraahdo ee iska wax u qabso yani dadkina awoodooda laga shaqaysiiyo taasoo aynu runtii u baahnayn wax nagu dhaqdhaqaajiyo inagu oo dadku yacni wadannimada waa jecel yihiin wax qabadkana dadku waa jecel yihiin waa u heelan yihiin laakiin dadku waxay u baahnayeen wax dhaqaajiya runtii ugu dhaqaajiya dadka waana wax badan maaragtay dadku way qabteen oo yacni arrintaas waa arkaysaan magaaladii isbeddelka ka muuqday intii markaa maayirkan uu joogay hadday noqoto bilicda magaalada iyo waddooyinka hadday noqoto dooxii weynaayo aynu garanayno iyo weliba waxyaabo kale oo fara badan ayuu maaragtay soo kordhiyey markaa dabcan tusaale ayuu u yahay maayirada soo maray caasimaddan Hargeysa waxaan leenahay madaxweyne wuu ku habboon yahay ilaahayna ha gaadhsiiyo maayirada kale ee yacni dalka macnaha soo mari doonaan waxaan leenahay war ninkaas tusaale inoo yahay ha lagu daydo wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu horta ilaahay baan mahadinaynaa ilaahay bishii rabadaan inagu sameeyay khayrkeeda ilaahayna siiyo haddaan ka hadlo maartay maayirka Cabdikariin Axmed Mooge وردانو ما يرد بدن وين يجي إني وين نوانا غير كسر وين يجي لعمتي أنت يردو هاي استمع على داس دقائق يوحو السمية يوم مارتي دعنو لكل شقينا ووحوين مركان وحنا لا هاي حتى هالكا كسي وديد إلى هدرتي يو دعدا كسي وديد تذكر ويكو إيجيان يكام ما تدعدا وحلق منايا تذكروجي ودوينك وسمينا يا مارتي شلكي عشرة الله قاضي دبوا علينا يا dadka eeganayaan marka waxaan ku ducaynaa anagu haddaan culimada nahay waxaan kugu ducaynaa daacadnimadaan kugu ducaynaa iyo maartay sidaa maartay u shaqeynaysan kugu ducaynaa ilaahayna ku fudeeyo haddaan maanta aan weliga horto ma codayn ilaahay baa runta jecel ee saadaan islaam maanta codee ninkaas hadduu madaxweyne isku soo sharxo maayirku Cabdikariin Axmed Mooge anuu waan codaynaya yaa ilaahayna ha gaadhsiiyo martabada waayo ninka maanta isagoo maayira saa u shaqeeyay hadduu madaxweyne noqdona wax ka weyn buu qabanaya marka insha Allah waan u ducaynayaa ilaahay xilka fadhiyo ilaahay irmiisoo dhan hagaajiyo maxamed cali jooga magaalada Hargeysa waxa la madaxweynaha ma dooran karaa maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge haa waan dooran lahaa waa nin muwaadin waa nin dalka u dhashay waa ninka bilaa qabyaalada dadka ummadda aragtay ilaahay codka ugu badan ku soo baxay magaalada Hargeysa ee hadal bilaa qabyaalada ku soo baxay marka waan dooran lahayn baan leenahay anigu dan shacabkiisa su'aasha Cabdikariin Axmed Mooge ma u qalmaa inuu madaxweyne noqdo ee aadna weydiisay haa waxaan leeyahay uu qalmaa sababo badanna wuu ugu qalmaa horta marka u horeysa tusaale fiican buu u yahay in ay dadku leeyihiin dad shaqayn kara oo wax qaban kara oo wax qurxin kara ayuu tusaale u yahay wuxuuna baray qaabka Hargeysa looga shaqayn karo dooxii buu noo qurxiyey qashinkii buu yidhi iska hagaajiya oo uu nidaamiyey waddooyin waaweyn buu soo wadaa aad iyo aad buu ugu qalmaa inuu halkaa ka sii dallaco inay dadki jeclaadeen inay si wanaagsan u shaqeeyeen u gudbay inay meel sare noqdaan ay madax ka noqdaan waxaanse odhan lahaa dadweynaha war had iyo jeer waxaynu qashinka aynu inagu daadinayno waxaynu u nisbaynaa dawladda hoose innagaana qubna waxa weeye qof waliba subaxii markuu soo kaco ilaa marka cadceedu dhaqaysa wuxuu leeyahay qashin isaga u gaara ama ha noqoto soofti ama mid waxaan ka tuuray ha noqoto ama bac ha noqoto
ama garaabo qaaduu daadiye ha noqoto qofka ayaa qashin gaara iska leh waxaan odhan lahaa yaynaan ku eegina qof waliba sida adduunyada ummadda caalamka ku dhaqani ay u dhaqan yihiin aynu qashinkeenna kiibgarayno oynu ku kiibgarayno meel loogu talagalay aynu ku ridno oo caagadda biyaha aan la doonanno oo aynu bacda la doonanno ninka cabdikariin axmed moogana boqolkiiba boqol baan taageersanahay inuu u qalmo inuu madaxweyne noqdo hogaamiye ah sharmaaki cumar axmed LTV Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed